breast cancer-ka waxa uu ka mid yahay wadamada hore u maray waa kansarka labaad weeyaan western countries marka la fiiriyo number 1 cancer waxa lung cancer maadaama pollution-ka iyo balwadaha ay ku badan yihiin kansarka samabada ayaa number 1 waa kansarka labaad way maanta wadamada western-ka qaarkood waxay marayaan 8 ilaa 7 dumaraba hal qof oo kamida inuu nolosheeda breast cancer ku dhici doono breast cancer waa dilaaweeye hadii aan waqti hore la daaweyn aad iyo aad buu halis u yahay WHO waxay ku qiyaastay sanad kasta 6,000 oo dumar ah oo Soomaali ayaa u dhimatay breast cancer kuma eka dumarka kaliya kuma eka ragana uu ku dhacaa hadeertaan intaasoo case wana soo martay oo real case oo rag ah wayna u dhinteen intii case wana soo martay oo breast cancer male breast cancer ayaa la leeyahay marka ha u fahminina dumar in laga hadlayo kaliya markii la yiraahdo breast cancer female breast cancer iyo male breast cancer saas la kala leeyahay calaamadaha uu yeelan karo marka waxa kamid ah ifta inay gudaha gasho nibble waxa leeyahay retraction waxa dhici karta meel maqaarka kamid ah naaska inay dimpling waxa la yiraahdo inay gudaha gasho tumorkii ayaa waxa weeye jiidanaya marka dimpling inay samayso waxa dhici karta discharge inay ifta ka timaado dhacaan ifta inuu waxa weeye sii dayso dhacaankaas wuxuu noqon karaa blood discharge dhiig wuxuu noqon karaa waxaan dhiig ahayn non blood discharge ayuu noqon karaa waxa la adeegsan karaa x-ray-gan waxa la dhahayo mammogram-ka waa raajo loogu talagalay naaska weeyaan barcad ayaa samaysmaysa oo lagu arkaya raajadaas mammogram-kaas waxa la adeegsan karaa CT scan waxa la adeegsan karaa MRI scan waxa la adeegsan karaa waxa la PET scan waxyaalahaas oo dhan ayaa lagu baari karaa baaritaankii marka aad xaqiijiso talaabada ku xigta waxay tahay staging waxa la xaqiijinayaa kansarka ilaa intee uu gaarsiisan yahay marka waxyaalaha la sameyn karo waxyaalaha aan rabno message-ka maanta aan rabo inaan gudbisaan number 1 waxa kamida dumarku waa inay isbaaraan ayaga breast self examination waa inay isku sameeyaan bishiiba hal mar ayaa la rabaa inay isbaaraan ayaga baaritaanka ugu fiican ayaga isku sameyn kara ayaga ogaan kara burada markay balowga tahay marka waxa la rabaa laba siyaabood midkood ay sameynayaan saan way dhigi karaan gacmaha muraayad bay hortagayaan marka waxay sameynayaan labada naas waxay fiirinayaan inay horta hore isla egyihiin size-kooda mise waa kala weyn yihiin dan markaas waxay sameynayaan farahaas waxa weeye foodooda ay isticmaalayaan hareeraha ayay ka soo bilaabayaan saas waxa u taabanayaan circular motion oo waxa weeye circular oo gudaha ayaa loo soo socdaa banaanka naaska laga soo bilaabaya gudaha la soo aadaya ilaa ifta lagu yimaado intaas waxa la raadinayaa meel kuusan meel adag oo inta kale ka adag ayaa laga raadinayaa dan markaas ifta la imaanaya ifta marka la yimaado saara loo qabanaya waa la tuujinaya sababta loo tuujinaya maxay tahay waxa ka raadinaysa discharge dhiig inuu ka soo dilaaco ama waxa dhacaan kale inuu ka yimaado sidoo kale saana la sameyn karaa saana waa la dhigi karaa labadaas siyaaboodba gabadha waa isku baari kartaa marka bishiiba hal mar waxaa la rabaa inay isbaarto waxaa kamid ah kansarka lama daaweyn kara dadkeena aaminsan yihiin kansarka waa la daaweyn karaa noocu rabo ha noqdo haddii waqti hore la ogaado early stage haddii la ogaado waa la daaweyn karaa midda labaad kansarku infection ma ahan hadeertaan ardada waxaan ka maqlaayay dhowr qof oo infectionka iyo kansarka isku khaldaya sepsis iyo bacteriyada maarta xagga ku dhalanaysa iyo kansarku waxa weeye ma ahan infection ma ahan bacteriyana ma keento virusna ma keeno waxa weeye ka dhalanaya cells-kii oo caasiyoobaya oo ka baxaya sharciyadii u degsanaa normal tissue-ga u degsanaa oo ka baxay iska tarmaya meeshii la rabay inay yaraadaan
seeliskaas oo chaoska ah foodada ah oo isdul fuulfuulaya oo nidaam raaceen ayaa keenaya oo dhacaamo sii daynaya oo meesha ku yimaadaan waa jiirayaan dhacaan bay ku soo daynayaan dhacaankaas googoynaya oo wadada u falaya meesha tagaana nafaqada dhan waa ka leexsanayaan normal tissue-ga baahi bay ku dilayaan kansarka lama kala qaado waa fariin aan rabno inaa gudbisaan dad badan waxay aaminsan yihiin waa takoorayaan qofkii kansarka qabay waa ka cararayaan waxay ku weydiinayaan weel wax ma lagu cuni karaa sariirta ma la seexan karaa qolka soo jeermiska ka soo haadaya bakteeriyada soo sanka iga gali mayso waxa cudurka kala qaado maaha war qofka la takoorin waxa qofkaas ku eg yahay qayb ka mid marka waa dhaxaltooyo waa fir genes oo kansarka keena ayuu qofku sidaa marka geneskaas qofkii dumarka oo laga helo waa la baaraa adduunka waa la isbaaraa 5 to 10% breast cancer waa genetic marka waa mahadsantihiin intaas waxaan filayaa fariimahaas galabta la idin dhiibay qof walba haddii intuu yaqaan u sii sheego qof social media u dhiga qof telefoon qof ugu sheega qof intuu yaqaan saaxiibadiisa classmates dariska qaraabada intaas uda sheega wax badan inay tari doonto ayaan rajaynaynaa sax dhowrna way mahadsanyihiin barnaamijkan soo qabanqaabiyay intiina ka soo qayb gashay aad baa u mahadsantihiin barakallahu fiikum marka insha Allah intaas ayuu noogu eegyahay